بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal markale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii dietki iyo nutritionka maantana waxaan jeclahay inaan ka hadlo cashar xaqiiqdii aad iyo aad muhiim u ah casharkan magaciisa waxaa la dhahaa sidaad ujeedaan glycemic index waxaa laga wadaa cunto walba waxaa loo sameeyey numberkaas wuxuu sheegayaa cuntadaas markaad cuntid sida sonkorta jirkaaga ku jirta hadba ay kor ugu kacayso ama ay hoos ugu dhacayso cuntada sonkorta jirkaaga ku jirta markay kor u kacdo cuntadaas cunto fiican ma aha waxaa loo baahan yahay glucose-ka ama sugar levelka jirkaaga in mar walba qaab balance ah uu u socdo marka insha Allah tusaalooyin ayaan ka bixin doonaa numberka loogu talagalay had iyo jeer sonkorta jirkaaga glucose-ka jirkaaga ku jira in ay noqotana waan sheegi doonaa hadduu alla idmo waxaan rabaa si fiican u dhageysataan kadibna dad kale ala share gareysataan numberka aan ka sheegi doono haddii uu u dhaxeeyo 55 ilaa iyo wixii ka yar waa number fiican cuntadaas waa cunto fiican oo aad cuni kartid haddii cuntadaas numberkeeda ay u dhaxeyso 55 ilaa 70 waa dhexdhexaad macnaha waxa waaye way kii hore ugu fiicnaa laakiin kan ayaa ku xiga haddii aad kuwii hore heli weysid kuwaana waa cuni kartaa numberka ugu daran oo mar walba loo baahan yahay inaad iska dhaaftid waa numberka aadka ugu sareeyo wuxuuna ka bilowdaa 70 iyo wixii ka koreeya waa 70 iyo wixii ka sareeya marka waxaan dhahnay glycemic index waxa waaye mar walba cuntada jirkaaga gasha sida ay sonkorta jirkaaga ku jirta hadba kor ay ugu kicinayso ama hoos ay ugu ridayso mar walba waxaa loo baahan yahay cuntada jirkaaga gelinayso in ay ahaato cunto markaas sonkorta ku jirta jirkaaga aysan kor u kicinayn sababtoo ah haddii kor u kiciso xanuuno fara badan baa khatar ugu jirta waxaa khatar ugu jirtaa in xanuunada la yiraahdo oo dhan chronic disease-ka in ay kula soo darsaan hadday noqon lahaayeen cholesterol-ka hadday noqon lahaayeen macaanka haddii ay noqon lahayd blood pressure-ka si kulli xataa kansarka ayaa lagu tilmaamaa kulli waxaan laga qaadaa cuntooyinka carbohydrate-kooda kor uu yahay sonkorta jirka ay ku jirtaan mar walba kor ku kicinaysa marka haddii aan tusaalaha usoo noqono cuntooyinka glycemic index-kooda uu yar yahay ama numberkooda uu yar yahay waxaa ka mid ah waxaad cabi kartaa apple juice-ka ama mataqaana biyaha apple-ka ah glycemic index-kooda uu yar yahay mar walbana waxaa kasii fiican xabadda apple-ka inaad cuntid intii aad cuni lahayd intii aad cabi lahayd yacni biyaha apple-ka waxaa ku xiga lentils-ka waxa la yiraahdaan ama Soomaalida ay u yaqaanaan cadiska numberkiisa waxa waaye 29 apple juice-ka numberkiisa 41 buu ahaa marka waa numberka aan rabno waxaa ku sii xiga grapefruit-ka waxa waaye liinta balbeelmada liinta weyn aad bay liintaas u fiican tahay nafaqo badan ayaa laga helaa nafaqo badan ayaa ku jira marka numberkeedana waa 25 wuu yar yahay number yar waaye marka liintaas waa ku casheyn kartaa subax xataa waa ku quraacan kartaa waxay ku fiican tahay hal xab hadaa cuntid waa dhargeysa satisfied baa noqonaysaa cunto kale uma baahnid broccoli-ga waa vegetables-ka u nimaanay broccoli-ga numberkiisa waa 0 waa aad u fiican yahay qudaarta oo dhan marka isku soo duubtid tusaalooyin dhowr aan ka bixinaynaa numberadooda waa 0 mushroom-ka glycemic index-ka numberkiisa waa 0 spinach-ka waxa waa 0 nuts-ka oo dhan hadday ahaan lahayd peanut-ka hadday ahaan lahayd almond-ka hadday ahaan lahayd walnut-ka hadday ahaan lahayd hazelnut-ka hadday ahaan lahayd brazil nut-ka kulli way fiican yihiin waxa waaye 0 glycemic index-kooda waa 0 sonkortaada waxba kor uma kicinayaan waxaa kaloo fiican ukunta iyadana waxa waaye xabad ama laba waa ka cuni kartaa ukunta ah organic-ga ah sonkorta jirkaaga ku jirta ama glucose level-ka kor uma kicinayso marka intaas waxa waaye glycemic index-ka numberka aan ka sheekeynayna kuwa cuntooyinka numberkooda uu yar yahay haddana waxaa u imaanaynaa cuntooyinka numberkoodu uu dhexdhexaad ka yahay rootiga mataqaanaa cad waa 70 wuxuu u dhaxeeyaa meeshii ugu sareysay iyo meeshii dhexdhexaadka ahayd marka inaad iska dhaaftid baa fiican rootiga cad mar walba waa laga fiican yahay waxaa kaloo dhexdhexaadka ah oatmeal-ka mushaalida iyadana dhexdhexaad waaye haddii aad kuwan heli weysid oo aad ku quraacan weysid ama ku cunto ahaan u heli weysid oatmeal-ka waa iska cuni kartaa laakiin la soco glycemic index-ka waa 58 wax yar ayay sonkorta jirkaaga ku jirta kor u kicinaysaa orange juice-ka waa 57
biyaha ka yimaada oranjiga waa 57 waa laga fiican yahay mar walba xabadda oranjiga adoo cunta ayaa ka fiican. mooska mar walba aan cunno quraac waxaa laga yaabaa qado walba ama mar walba inaan cunno dhaqan ahaan uu noo yahay 52 waaye sonkor badan ayaa ku jirta that's why ay ku dhahayaan dadka mataqaana dhaqaatiirta ah iska ilaali weliba haddii aad pre-diabetes ama type 2 diabetes aad qabtid. macaroni cheese-ka caruurta aan siino oo mar walba ay cunaan guryaha noo yaalo 64 waaye marka sonkorta jirka ku jirta kor bay u kicinaysaa glucose levelka. coca-colaha 63 waaye waa laga fiican yahay mar inaad iska dhaaftid sonkorta jirka ku jirta kor bay u kicinaysaa. faantada sidoo kale 68 waaye. haddana waxaan rabaa inaan nimaano cuntooyinka mar walba loo baahan inaad iska dhaaftid waxaa waaye glycemic indexkooda ama numberka ku jira aad u sareeyo kadibna waxaa waaye sonkorta jirka ay ku jirtana kor ay u kicinayso. malabka waxaan jecelnahay inaan cunno laakiin la soco glycemic indexka waa 87 markaa malab cuntid sugar levelka jirka ku jiro kor buu u kacayaa marka inaad yareysatid baa fiican haddii kale aad joogto aadan ka dhigan. sidoo kale qaraha aad baan u jecelnahay weliba ramadaanka markii la gaaro laakiin la soco numberkiisa waa 72 markaad qara cuntid sonkorta ku jirta jirkaaga kor ayay u kacaysaa. baastada mar walba aan ku cunteeno aan ku qadeyno glycemic indexka ama numberkeeda waa 75 mar walba baasto cuntid sugar levelka jirkaaga ku jiro kor buu u kacayaa. haddana waxaan soo sheegnay cuntooyinka xanuunada khatarta ah ee chronic disease-ka khatar baa ugu jirtaa. white rice-ka briiska aan cunno oo cad waxaa waaye isagana numberkiisa waa 72 inaad iska dhaaftid ayaa fiican sababta waxaa waaye glucose levelka jirka ku jira kor buu u kicinayaa mar walbana waxaa khatar waxaa ugu jirtaa xanuunada aan soo sheegnay ee chronic disease-ka. biisada caruurta aan siino aan usoo iibino mar walba iyada numberkeeda waa 80 waa number aad u sareysa waxaa loo baahan yahay inaan ka dhaafno caruurteena annagana aan iska dhaafno sababtoo ah sugar levelka jirkeena kor buu u kicinayaa xanuunada faraha aan soo sheegno faraha badnaana khatar ayaa ugu jirtaa. marka waxaan u maleynayaa insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysteen casharkeena inta aan mar kale isku arki doono insha allah casharadeenna dietka nutritionka waxaan kaga tegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.